الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى زمنك يا وقتك إن مريا وكدغي خسنده وحلق شده وظائف إيا الشقنا وأسمي زمن كستي وقت كستوك مريا خسنده هاسي وحي آد قشته بعد بريء بحصن أو كلبحي هدي كوح انتهي إيا هدي كوفي عنتهي وحان باللوني سنة العسر وحانا ضميني والسوق بقبيني سنة وحان ضميني وبشي هذا دماتي ذي الحجة إنه قد ماذي سنة ككون أفر بقول أفرتني كوباد هجرة دي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحان بلوني كن أفر بقول أفرتني اللبا هجرة دي النبي كصب اللبا صلى الله عليه وآله وسلم أيام بشم بلوني وسند عصب سند ماذي هي سند نوب اللوذي sanadkii ku dhamaaday waxa haboon inaad xisaabtanto maxaad faa'iiday maxaad khasaartay inaad naftaada la fadhiisato oo la xisaabtanto oo aad la gooni noqoto oo aad miisaanka isa saarto oo sanadka dib u akhrido sanadka khasnadiisa maxaa ku galay shaki malaha هذا ديبو أخرده وحكاجة صباح يا صفحة فر بدن مدو خلدات بدن ودقشي ذنوب فر بدن ودبالتي وحبدن باكو صباحي سيدين أوكل بدنها ما أوكل بدسنبا روح تهاجر كي جناع صدها سنة كيسة جناع سمركو لما هذا حساب حربو سمية وحون حسابي حوله سمحا كسو كردي محا كنسقامي محا ويالا محا مقن محا الدين كمقن حساب حربو سمير يا سندك وكذلك أخرد هذا سند بعد لما هذا حساب حربو سمير محا كاتغي محا كوقف صومي محا تقصتي محا خلد محا وناقة هالكاسا وحا كيماني سمركا sanadka dhamaadkiisa inaad tawbad ku khatimto ilaahu wixii dhacay iga dhaaf qalbigaaga ka xumaada ka qoomooda ilaahay dambi dhaaf weydiista xumaantii inaad xidho safxadaasi waa safxadka inaad tawbad ku xidho yaa ayuha alladina aamanu tuubu ila allah tawbatan nasuha mar walbaan farannahay oo laynaga rabaa tawbada inaynu cusboonaysiino لأن مروا الذنوبتنا حل والبيع حالض الذنوبتنا أبدا داود ذنوبتنا وتوبدا مركة توبدا كذلك سيد علماء إليه سنة عصب كوب اللابان وصفحة عصب هذا باللوذي صفحة سنة وحا أقوه الرئي كقر ما إنه توبد نقضه يا إله وانكوص ونقونا يا وحي إقدع أيضا وحوي سنة عصبات كفر فريسا وكفر نيسا بيشنا يكون كتيرنا وهذا إنه بلوني بيش محرم سنة كقمرية أما هجرية أبا كبلوضة وحي كم يتهي أفرت بلوضة سنة كأوقفض ببضن إلهي قرآن كوشيغي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بلها الترداد سنة كوالبية طبان بلوض وقال تبارك وتعالى اسباب الدش صدحي توما من نقطه كوي توما من نقدان ذلك الدين القيم وحكم إذا أفر بلاد أو منان خاصة له ولي هذا أشهر الحرم أفر تاب بلاد تي صدحات بين كوتش الناس صدح دي اسكو حكتي ذو القعدة وبيش حجك كور ريساء يبيش حجك ذو الحجة يبيش نصنة كوه الريساء صدح ذا بلاد اسكو حكتي أشهر الحرم كأوه
bilna waa goonideeda oo gooni bay u taagan tahay oo waa bisha rajab shacbaan iyo jumaada u dhaxaysa bilaha afarta amudnaan khaasay leeyihiin ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala waxay mudnaan ku leeyihiin wax kale ma aha qiimaha acmaasha la samaynayo wanaagsanna way ka qiimo badan tahay xilliyada kale allahumma ramadaan marka laga soo reebo dunuubta iyo khaladaadka la galana way ka culisiin oo way ka weyhiin bilahan dhexdooda saas daradeed baa ilaahay wuxuu yidhi falaa tadlimuu fiihinna anfusakum bilahan dhexdooda naftiinna ha dulminina maxaa laga wadaa naftiinna ha dulminina bimacnaa dembiyada iska ilaaliya waa lianna dulmi naftaada aad dulmido waa macaasida waa shirkiga waa bidcada waa dembiyada naftaaday ku soo noqonaysaa dhibaatadeedu adaa isdulminaya marka ha isdulminina wakadalika dadkuna waa adiga oo kale ee khalqigana ha dulminin bishani marka bilahaasay ka mid sanadkii cusbaa bilowgiisana way fadaa'isheeda waxaa ka mid a sida nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi soon la soomo ramadaan kadib ramadaan waa soonkii waajibka ahaa ee laasimka ahaa ramadaan marka laga tago soon la soomo waxaa ugu fadli badan buu nebi sal alay wasalam bishan ilaahay ee muxaram soonkeedaa ugu fadli badan bishan allah bishiisa bilahoo dhan ilaahay baa iska leh laakiin maxaa loo yidhi bisha alle waxaa ilaahay loogu idaafeeyey mudnaan khaasay sii leedahay maxaa yeele ilaahay makhluuqaadkiisa waxaa loo idaafeeyaa shaygii la sharfayo naaqatullah baytullah khaasata waxyaalaha acyaanta ah marka soonka bishani wuxuu ka mid yahay cibaadaadka ugu fadli badan iyo soonku asminada ugu fadli badan yahay bay ka mid tahay soonka sunnada ee mutlaqa ah bisha bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda inteeda badan in la soomaa fiican laakiin waxaa mudnaan khaasa sii leh maalinka 9aad iyo maalinka 10aad baa haddana mudnaan khaasa sii leh soonkeeda nabigeennu sala allahu calayh waalihi wasalam maalinka 10aad oo yowma caashuuraa la yidhaahdo intuusan soo hijroonin oo maka joogay quraysh baa soomi jirtay isaguna wuu soomay intuusan sooba hijroonimna markuu soo hijroodo magaalada madiina yimid nabigu sal alayhi wasallam isagoo soo hijrooday ayuu wuxuu u yimid qoysaskii reer yahuudeed ee magaalada madiina deganaa oo soomaya kadibna wuxuu ku yidhi maxaad u soomaysaan maalinkan waxay yidhaahdeen waa maalinkii ilaahay nebi muuse iyo reer bani israa'iil badbaadiyey fircoon iyo intii la socotayna ilaahay halaagay oo biyaha ku maansheeyey saas daraaddeed waxaan u soomaynaa shukri aan ilaahay ku shukrinayno dhacdadaa iyada ah oo ilaahay guusha ku siiyey reer bani israa'iil fircoon iyo wixii la socdayna ilaahay ku halaagay tabaaraka wa tacaala taasaan ka shukrinaynaa ka mahad celinaynaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam annagaa idinka mudan muuse annagaa idinka mudan see buu uga mudan yahay leanna yahuuddaasi diintii nebi muuse la yimid way ka leexdeen mar walbaba ruuxa cidda mudan ee u dhoweey xigtadiisa waa dadka manhajkiisa iyo ariiqu la yimid hayo waay ina awla annaasi biibraahiim laladiina ittabacuuhu wa hada annabiyu ibraahiim markii laysku qabsaday oo yahuudina tidhi annaga nasaarana tidhi annaga allah kala saaro wuxuu yidhi cidda ibraahiim ugu mudan ee ugu dhowaa ciddii dariiqiisa martay waay iyo nebigan iyo ummaddiisa raacday لأن التوحيد كي نبي إبراهيم ليمد نبي محمد باهيا توحيد كي نبي موسى ليمد عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام نبي محمد باهيا يا أمدي سا أيقو الشاقد بين نقدين مرك سيداس درادين نحن أحق بموسى منكم موسى أنك إذن كمدا مركز النبي أمر صلى الله عليه وسلم والصومي داد كانوا وحو أمره هلا الصوم سوى ذي تشري مركز مسلمين تو مركز لقب الله ومقالة مدينة اللوغة الصومي maalinka 10aad ee bisha muxaram yowma caashuuraa xilliga iyada ramadaan soonkeeda lama jidaynin nebigu sal alla alay wasalam xataa tuulooyinkii magaalooyinka dad buu u kala diray wuxuu yidhi intii waagu bariyey ciddii wax cuntay maalinka inta ka dhiman ha af haysato iyana wax cunin
intii waagu bariyay ciidan waxba cunina soonkiisa ha dhamaystirto maanta waa caashuure hatta caruurta yararka ay soomin jireen maalin aad loo qadariyo aha soonkiisa markii ramadaan ilaahay waajibiyay oo ummadan ku waajibiyay ayuu nabigu wuxuu yiri cidii doontana ha soonto caashuura cidii doontana aysan soomin waajibnimadii waa laga khafiifiyay sunnu noqday markaas cidii doontay soon cidii doontayna iska daa nabigu markaa sallallahu alayhi wasallam waa soomay waana ku dadaalay ummaduna waa ku dadaali jirtay aakhirkii nolosha nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam sanadkii u dambeeyay geeriyoon doono salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ayaa rasuulka saxaabadu waxay ku yiraahdeen markuu amray maalinka in la soomo ayaa waxay rasuulka ilaahayow maalinkan yahuudiya nasaara weyneeya طبعا waxay ka wadaan annagana waxaan la amray inaan khilaafno labada ummadoodba maalinkan waa maalin iyagu weyneeyaan markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadaan sanadka soo socda gaaro waxaan soomi doonaa maalinka sagaalaad taas culimadu ay ku fasireen maalinka salaada sagaalaadna waa soomaya tobanaad oo caashuuraana waa ku darayaa si kaliyeelida maalinka ayagu ay kaliyeelayaan aan u khilaafno maalinka horeeyaan ku daraynaa laakiin nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam intaan waqtigii la gaarin baatiisi soo gashay falahiqa bi rafiqil a'la macnaheedu wax weey sida fiicani sagaalaadka in la soomo tobnaadkana la soomo haddii maalinka sagaalaad soonkeedu ku dhaafo oo tobnaadka soontana kow iyo tobnaadka ku dar Abdullah ibn Abbas bay ka sugantahay inuu yiri maalin ka horeeya sooma ama maalin ka dambeeya sooma si aad u khilaaftaan yahuuda sidaasi waa maalmahan faadilka inugu soo aadan iyo soonkooda labada bari baa mudnaan siile laakiin saan tilmaanayba bisho dhanba soonkeedu waa ka fadli badan yahay soonka bilaha kale marka laga reebo bisha ramadaan sida xadiiska nabiga ku cad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka cibaadada soonka cibaadaadkii kale sidoo kale maadaama ay tahay bil xurmale cibaadaadkii kalena way ka sii weeyeen noocyadii kale gaar ahaan sanadkan bilowgiisa waa xilliga dawladda muslimkii markay muslimiintu dawladda zaka ururiya ay lahaan jireen xilliga zakada la ururin jiray waa oo iyadana mudnaantaas ay lahayd laana sanadka bilowgiisii weey laakiin maadaama dawladdii muslimiinta zakada ka qaadi lahayd ee xilliga u qaban lahayd ee sanadka bilowgiisa ka ururin lahayd aysan jirin waxay noqotay ganacsatada iyo dadka xoolaha leh ruux walba xilliga waqti sanadkiisu soo wareego inuu ka zakeeyo saas daraaddeed Soomaalidu bishan waxay ku magacoodaa bisha zakada ay dhahaan waana sax mafhuum sax waa laakiin wuxuu ka soo bilaabanay waa xilligii dawladaha muslimku ay sanadka bilowgiisa zakawaadka ka soo ururinayaan taana waxay ina baraysaa zakada soo wareegtay in la bixiyo oo zakada lagu dadaalo sadaqaadka iyo ihsaanka iyo samafalka khalqiga lagu dadaalo dhikriga iyo taacada ilaahay lagu dadaalo salawaadka iyo khayraadka dhamaan inta aad ka qaadan karto ka qaado bishan barakaysan ee ugu dambaysa bilihii xurmada lahaa saddexdii isku xigay ugu dambaysa Allah tabaaraka wa ta'ala waxa weydiisanaynaa inuu khayraadka ina waafajiyo azminada ina maraysana ilaahay tabaaraka wa ta'ala kuwa ka faa'iideysta ilaahay naga dhigo sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك